السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وادي سو سلام يا دمان ولاalaha Soomaaliyeed meel walba oo iga daawaneysaan iyo si walba oo idin maqleysaan wadi soo salaamaya waan kala baadnay xogaa maalmaha oo iska mashquulo waxaan doonayaa inaan bal muuqaalkan laba arrimood oo runtii aad muhiim u ah aan ku dul istaago waxaan marka hore aan bal comment garayn doonaa aragtideedana ku biirin doonaa hadalkii cuusla ee ka soo baxay Garaad Jaamac Garaad Cali oo uu uga hadlay sida Xasan Sheekh Maxamuud uu qayb uga yahay dagaalka ka socda laascaanood oo ka hadli doonaa waxaan kaloo ka hadli doonaa waa maxay qorshaha uu Xasan Sheekh Maxamuud ka leeyahay shirkii soo dhamaaday oo aan waxba ka soo bixinin waa maxay danihii laga lahaa waxyaalaha ku xeeran taas u badnaan doona analysis-kayga waxaan idinka siin doonaa xog iyo faham dhaba oo ku aadan wixii meesha ka dhacay iyo wixii looga dal lahaa haddii aan midda hore ku bilaabo runtii Garaad Jaamac Garaad Cali hadalkii uu yiraahday midna wuxuu ahaa qodobo uu carabka ku adkeeyay oo aysan sharaxaad u baahnayn qaarna waxay ahaayeen qaar la arki karayo waxa hadalkan ka dhalan doona ay ahaayeen garaadku wuxuu runtii cadeeyay this time oo carabka uu ku adkeeyay inuu Xasan Sheekh Maxamuud qayb ka yahay waxa ka socda laascaanood oo uu markaasi si dadban iyo si kalaba u taageerayo dhabarjabina uu ku hayo jamaahiirta SSC qodobkaasi maalmo yar ka hor ayaan idin sheegay muuqaalkay waliba ugu dambeeyay in garaadada iyo dhulbahanta uu ka bogtay markaan inaysan xamar iyo Xasan Sheekh Maxamuud aysan waxba ka jirinin qodobkaas sidaan idinku sheegay ayuu garaadku markaas uga hadla waana xog ay runtii xasaasi ahayd oo la helay oo ku aadan Muuse oo la hadlay rag marka asaga ku xeeran oo u sheegay kana abaal sheegtay Xasan Sheekh Maxamuud iyo sida uu garab taagan yahay kuma laabanayo waa shaka dheer laakiin waa xog fakti ah oo dadka xoogaalkan ay ogaadeen lagana warqabo sida uu Xasan u garab taagan yahay nimankaasi taa markaa wuu cadeeyay oo wuxuu yiri Xasan qayb buu ka yahay dagaalkaani dhanka kale garaadka runtii inuu hadalkaasi yiraahdo wax badan bay asaga ka sheegaysaa waxay ka sheegaysaa inuu yahay nin runtii aan ahayn siyaasiyiintan iyo garaadadan iyo nimankan maanta Soomaaliya wareeriyay ama culimo ha ahaadaan ama siyaasiyiin ha ahaadaan ama dhaqan ha ahaadaan u fasirtay siyaasaddu inay tahay meel laga shaaho oo beenta iyo isdaamarinta iyo qiyaaliga iyo ummadda la baran habaabinayo dhaqanka ka dhigtay inuusan ahayn ayuu Garaad Jaamac Garaad Cali u muujiyay wuxuu muujiyay inuu yahay nin ka mid ah raggii ay ummaddu u baahnayd inay hogaamiyaan nin sheegi karaya dhibaatada jirta nin value iyo qiyamka uu yahay ama uu ku fadhiyo markaasi aan ka cararaynin waxaan xasuustaa markii aan arko sida Garaad Jaamac uu dhagan yahay hatta dharka uu qabo koofida iyo shaatiga iyo macaawista sida uu simbalka u yahay isagoo nin qurbaha ka yimaaday ah heli karaya inuu 24/7 suit ku taagnaado heli karaya inuu mataqaana isjaakeeyo inuu sida simbalka u ahaado oo ay ka muuqato dhaqankii iyo culture-kii iyo value-gii uu xambaarsanaa ay ka muuqato usan dhar dhiganin sidii Shariif Sheekh Axmed waxaan xasuustaa asagoo wadaada hal marta aeroplane Mareykan ku soo qaatay soo u qabay cimaamad iyo koofi iyo qamiis oo uu mataqaana ummadda u wacdinayo wadaad u ahaa ummadda u daba socotay ayuu hal marta dharkii la baxay buu soo xirto wuxuu noqday siyaasi qiyamkii iyo value-gii uu lahaa wadaadnimada maalinkii buu quba qofka noocaayo kala maaha qofka ummadda hogaamin karaya maaha inaad ka cararad wadaadnimada habi ku ahaato adoo wadaadada ummadda hogaamin kartaa haddaad garaad tahay maaha inaad garaadnimadii siyaasadda u bedeshid aad suud xirato beenna aad siidaysa maaha sidaadaas ummadda ku hogaamin kartaa qofkaan u baahannahay marka waa qof qiyamkiisu ku adag yahay ummadda hogaamin karayo waxaan dhinaca Garaad Jaamac Garaad Cali Allah ku xafido maalinka aad soo xoreysa laascaanood dalka ku sugaya dalkana xore hogaanka aynu maanta u baahanahayna waa qof adoo kale taaway marna maxaa la yiraahdaa garaad marna wadaad marna aqoon-yahan marna qof damiir leh oo runta iyo dhabta ka abaari karaya dhibaatadana haysa waxaan dhihi lahaa reer laascaanood ninka ilaashada hogaan kii ummadda u baahnayd baa idin soo baxay ninka ilaashada waxaan aaminsanahay awoodda maanta iyo jaaniska uu Garaad Jaamac haysto Saddexaan Cabdilla Xasan ma haysan meel ka hooseysu ka soo bilaabo Garaad Jaamac maanta intuu ugu yaraan 500 baabuur oo asagu uu masuul ka yahay oo hub ah iyo ugu yaraan 20,000 oo wiil oo ku reer ah hubaysan ayuu haystaa marka waa nin ummadda oo dhan badbaadin kara dalkana badbaadin karaya qodobka halkaas aan uga baxaya garaadku hadalkiisu hadal dhab abu ahaa waxayna muujinaysaa
in hadalka wixii ka dambeeya ay guul iimaanayso maalinkaad cadowgaaga baratay aad guusha gaaraysaa markaysaa inta aad laakiin cadowgaaga suba salaaxayso oo aad siyaasadaynayso oo aad afka kala laabanayso oo aad runta ummadda u sheegaynin ummaddu waxay u baahan tahay hoggaan runta u sheega hebelow waxaad samaynayso wax qaldan wasaa la oran karaya wey qodobka halkaas nooga baxaya arrinta kale qodobka kale shirka muqdisho ah qodobkaani runtii waa qodob xasaasi ah weeye meelo badan baana doonayaa bal aan idinka tuso madasha wadatashiga qaran go'aankii ay soo saareen 27kii May ee muranka badan dhaliyay in lagu saxo ayaa ragga isugu yeeray baa liiray ragga markii aad fiiriso ayaguna waa madal kale oo aad moodida hadda in la aas-aasiyad moodaa waa madal cusub weeye markaysaa waa madal cusub oo xasan asxaabtiisu ay aad ugu fara badan tahay 90% waa xasan asxaabtiisa maalinkii horena dad yar oo dhowr qof ah ayaa ummadda masiirkoodii jeebka gashatay 99%na dadkii meesha isugu yimaadeen badbaado qaran nimankii la baxay ahayd markaysaa midkaan arkaysaan wuxuu ka mid ahaa badbaado qaran ninkaana wuxuu ka mid ahaa asaguna badbaado qaran kana wuxuu ka mid ahaa badbaado qaran kana wuxuu ka mid ahaa badbaado qaran kana wuxuu ka mid ahaa badbaado qaran all of them markaad fiiriso markii laga reebay geedi iyo markii laga reebay Cabdiweli Cali Gaas intaan xasuusto labada nin baan ku jirinin laakiin darastii wixii badbaado qaran lagu sheegay oo hubka iyo geela qaranayay ayay aad xilliga doorashada haddaba markaa raggan meesha yimaaday waxaan aaminsanahay sababtii loo keenay inuu qorshe ahaa iskaba keeninin xasan hadduu doonayo inuu furo madal ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ka tala bixiso waxaa imaan lahaa dad badan oo Soomaaliyeed baa imaan lahaa meesha dadkii joogay wasiiro iyo ra'iisul wasaarayaal iyo madaxweyne hal shaqo shariifa uma joogay waxaa jira wasiiro kuwan ka fara badan baa jira ma garanay sababta loo soo xushay wasiirada ku jiray badbaado qaran oo kaliya waxaa jira siyaasiyiin kale ma garanay wax kuwan loo soo xushay taa marka waxay muujinaysaa in meeshan uu qorshe uu ka socdo dadkaana saab loo keenay dadka ka baaqday sida xoguhu ay sheegayeen maxamed cabdullaahi farmaajo waqti oo gabagaba ah baa loo sheegaa taasana aftirkeed waxay muujinaysaa in la doonayay in eedda farmaajo la iska reebo la yiraahdo farmaajo waan casuuna uu imaan waayay waqti dambana la casuumo taasana aftirkeed waxay muujinaysaa aan aaminsanahay inay qorshe ahayd oo aysan mistake ahayn markaysaa ragga kale oo aan imaanin sida Cabdulle Sheekh Axmed Saacid iyo niman kale oo sheegay ayaga waxa suurtagal ah in amba la casuuminin ama ayaguna xil dambe oo leeyahay la casuumay aniga caawi xuseen adiliya la maalmood kuma imaan karayo qofku shaqo uu leeyahay nolol buu leeyahay qorshaal buu leeyahay hadaa doonaysid inaad timaado meel aado waa inaad biilashaada iyo noloshaada iyo wixii intii ka maqan shaqadaadii waa inaad isbalan garayso cid bay garaysaa meesha ma jirto maxaad moodaa marka niman siyaasiyiin oo qorshayaal siyaasi iyo shaqooyin kale iyo business ay leeyihiin ama ka shaqeynayaan ama darooda kala qabsanay imisa maalmood bay u baahnaan karayaan inay xamar ku tagaan wuxuu qof yar ku shaqeeyo diyaarad soo raac leeyahay ma qofku time buu u baahan yahay inaan time la siinin baa muujinaysa marka inay qorshe ahayd haddaba marka la isku soo duubo maxaa laga leeyahay shirkan maxaase mataqaanaa laga fahmi karayaa labaan u kala qaadayna waxaan aaminsanahay laba mid ayuu xasan sheekh maxamuud shirkaani danta uu kala habay ahayd midda ugu horeysa waa inuu xasan dib uga gurto oo uu ka laabto heshiiskii foosha xumaa ee 27 May la sameeyay si marka looga laabto intuu af uga laaman lahaa inuu iska dhigo nin ay siyaasiyiin kala aragti ah oo dalka ay qabteen oo marka uu ka laabtay iska la dhigo nin maxaa la yiraahdaa wax ka maqlaya siyaasiyiinta kale oo la qaban karo iska dhigo maadaama uu horay ugu eedeysnaa nin qol cidla inta hoos ka soo xirtay wuxuu rab iska xariiqay taa waa mid labaadna waa inuu xasan doonayo in sidii madashii hore uu marsaday wixii uu marsaday inuu madashaana siyaasiyiinta ay kuwan meelaha ka buuqayna oo inta ugu badan ay ka qayliyeen wixii soo baxay inuu ayagana inta kala laalusho kala qanciyo ayagana uu marsado marka uu xalaalaysto heshiiska waa inuu ka laabto ama inuu xalaalaysto labada mid buu xasan ka uga dan lahaa mid walba marka waxay leedahay consequence-geeday leedahay mid walba dhibaatadeeday leedahay markaysa hadduu ka laabto inkastoo hadda shirkii aan weli heshiis dhaba uusan ka soo bixin laakiin xasan uu sheegay inuu ka laabanayo extension-kii maamul goboleedyada shuqul kuma lihi buu yiri ayaga lagala xisaabtamaya aniguna waan ka laabtay buu yiri laakiin weli communicate kuma ay soo bixin hadduu hadda soo bixin haddaan daawanayay hadalkii fila Soomaaliya sida daraadeed hadduu xasan ka laabto officially extension-ka taasoo laga sugayo inuu ka laabto haddii ay dhab ka tahay
حسن waxay isdeynayaan maamul goboleedyada khaasatan lafta garan iyo Axmed Madoobe iyo Xasan way isku dhacayaan waa qasab oo maxay isugu dhacayaan waxay arrintan u ekaanaysaa ama loo fahmi karayaa inay ahayd qorshe la doonayay in Axmed Madoobe iyo lafta garan aysan doorasho isku diyaarinin oo ay isku haleeyeen muddo kordhinta sidaa daraaddeed hadda la yiraahdo maxaa la yiraahdaa doorasho qabta xilli aysan qaban karin oo markaas meesha laga tuuro markaysan تامر كوحي كنت إن مملوك بلجدة يحسن أي سكون عام وقدم كوجه الرئي وكإيمان يا هدي حسن وكلابته حد عدونته إن مدرش وتشي قارن ممكن لو ويا رئيس مرض بشرين نسون قرقر إيمان نسون جود لاو إيمان نسون لفت جران إيمان نحمد بوس أياك إيمان دونته ويحسن إن من كسكون عن ما دام وحي أي كدونيين وكلابته حسن أياك صابتي أي أرنتا أصحيحين أي أهيد إن حسن صحيحيو هشيسيو أي حسن أصحيحان markaysa xasan markuu ka laabtay markii ayaga wixii uu doonay uu ka helay ayuu ayagii qiyaanay uu ka laabtay baa loo fasiri karaya waxa kale loo fasiri karaya inay ahayd qiyaano la doonayay in nimanka lagu hareereeyo oo aysan doorasho macmal aysan samaysan oo ay dhigtaan waqtigooda markuu dhamaadana ka bacdina la farageliyo markaysa waa loo fasiri karaa taa mid kale in horay loo wado ayaduna waa qorshe kale oo nimankaasi laga saxiixdana oo la yiraahdo adinku nagu raaca waxaan siinayna lacag waxaan siinayna xilal waxaan siinayna wasiiro waxaan siinayna ambassadors iyo waxaan siinayna bal adinkana nagu raaca la yiraahdo oo ayaga la luusho maadaama ay ahaayeen niman kooxa oo qayliyay dalkan xilal ka soo qabtay taas naftirkeeda xasan hadduu sameeyana waxaan aaminsanahay xasan cid kale ayadoon la gaarin magaalada muqdisho iyo asaga waxa ku dagaalami doona niman asaga ku reer حسن حلقي سو دمان با مقدشو لوgu dagaalami doona oo consequences ka iimaan doona rag baana ka hanshabay baa la yiri meeshii shirka ahayd oo cusub la kamid labadaas marka ajandaba oo xasan uu ka leeyahayba mid walba xasan wuxuu bixin doona price culus buu bixin doona xasan wuxuu ku jiraa meel runtii ay adag tahay inuu horay u dhaqaaqo adag tahay inuu dib u dhaqaaqo dib haduu dhaqaaqo ma goboladiib weynaya horay haduu dhaqaaqan ummadii dhan iska hor iimaanaya reerkiisa wixii laga diiday farmaajo xasan cidna kama yeelayso black and white xasan marka waxa muuqata marka inuu meel dhexe istaag uu ku yahay oo asagoo halka uu taagan yahay waxaynu arki doonaa marka bal sida loo dhaqaajiyo arrintan muddo badan baan ku haynay waxa aad sameynaysaa ma soconayaan markaysa xasan ma ahan inuu haysto room wuxuu rabo uu sameyn karayo isla cid kale sameyn kara malaha markaysa heshiiskii hore ciddii isbaaraysatay ama la oran karayo arrintaas way istaajisay Puntland bay ahayd waxa hortaagneed oo kaliya heshiis aan loo dhameyn lama dhaqaajin kara hortaagneed intaas ka gudbay xasan dadka qaqaylinaya siyaasiin iska daa caalamku wuxuu soo hordhigaa heshiis aan loo dhameyn lama raaci karayo heshiis doorasho ay Puntland ku jirinin waa heshiis aan loo dhameyn marka xasan uu ka laabanayaa waliba arrinta extensionka uu ka laabanayaa laakiin xasan imaamul goboleed dagaalkooda bilaabanaya halkaasayna ka bilaaban doonta arrin ka culusba tii hore لكن وقت شيء دونا وهي هالك كسب بحنا يصير الله أم بقادنا أينو مقالة دمبه أينو كو أنا لسكرننا لكن لا بعرف باللغة دلني أني بقول عليه وين لقى لابته ينهار الله صعده مدي حسن قصة ما يسبع مدي وحسن قاعدة بقى ولا يسكون مد كهذا هيست أيو لحق الدونا أنت سانكسو كوبيا أنت تبصق صلاة الله إنه عندك ترى سنة ودينه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.